al-shabaab baa yimid oo halaag kala isna magac diineed ba ha watee laakiin qaraxya ummadda lagu halaagay markaasaa aawe sumcaddii islaamkaaba xataa meesha ka baxday islaamku ma caruur buu xasuuqaa iyo dumar iyo masaakiin miyuu xasuuqaa maya istishhaadiye barakaysan mar zooba maxaa ka dhacay zooba boqolaalka qof ee ku dhintay iyo dhul go-a meesha ka dhacay markaad fiiriso halaag inay tahay ka shakin maysid halaagga soomaali ku socda qeyb ka mid oo shabaabka ah sumcaddii islaamkana maanta cidaad ka dhaadhicin karta ma leh markaad tirahda anagu muslimiin baan nahay diin xaqaan wadnaa diintiinu ma diinta caruurta xasuuqaysaaba ku dhih diintiinu ma diinta mindida qofka lagu kirkiraya yaase looga dayanaya mindidan ma sunno nebiba waxay yidhahdeen qola hadda ka hor aan la doodayo shabaaba oon ku iri war waxaan maxaa ka rabtaan waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam qoladii uu ka adkaaday ee banu qurayda soo mindi kuma kirkirin war xagee keentay beentaas ma nebi maxamed baa mindi wadan jiray calayhi salaatu wasalaam ama amre ciidamada inay qofka mindi saawira ku kirkiraan maya bal amar buu bixiyey fa idaa qataltum fa axsinu lqitl isagaa odhanaya haddaad dilaysaan dilka wanaajiya dil qurux badan oo qofka marka naftiiba la dhaafinayo seefa xafqa horta looga siin jiray ee mindi yaro lagu kirkirayo ma jiraan waxaas waa been waxaa kaloo kaaga daran sumcaddii islaamka haddii culimmadii la dilay ninkii wax sheegaba oo kaa fikir duwan ma aha inaa culimmada khayr qaar badan oo baadiya jiro oo dadka ulminaya laakiin maxaa ummadda lagu badbaadin karaa dibate sharci ah dood sharci ah oo kitaabkii sunnada la isu bandhigayo laakiin waan kaa xoog badnaa hadday tahay oo shiikhii aada dishay oo aqoon-yahanka waa laga faaidaysan laha ninka aqoon-yahanka ninkan professor wuxuu soo bartay kaba soo qaad oo kale sida technology qalabka technologygu soo bartay electricgu soo bartay petroleumku soo bartay engineeringku soo bartay waa loo baahan yahay caqiide ahaanna waa la dhisaya asagana dalka iyo dadkaa u baahan maxaa u disha kaas kaba soo qaad dadkii culamadaha iyo aqoon-yahanadii u hadlays dad juhalaa kuu soo haray yaad xukuma dadkiina waa qaxeenba maxaaba juhalaa waa qaxayaan mid abaar ka qaxaya mid xabad iyo qarax ka qaxay noqonayaan xiriiq qaxootiya marba u n ta usii furtaa way ogayihiin ummaddu inay soo yaacayso ord bal soo fiiriya dhagaxley midda ka sheeso hadda la furay oo la yidhi dadka shabaabka ka soo cararay baa loo furay yaad xukumaysaa marka dadkiiba disha kala qaxisaya waaba haddaabad xukun iyo diin u socotee maya sumcaddii islaamka niman yahow waa ku tumateen oo magacii diinta wey waxaa wax ku dilaysaan magaca qabiil ma aha aada ku dishide dadkii dilka mudnaa ilaahay wuxuu yihi rasuulkiisu calayhi salaatu wasalaam qaatilu fi sabiili illah calaa man kafara biاllah walaa taqtuluu waliidatan wala imra'atan walaa shaykhan faaniyan bu yihi calayhi salaatu wasalaam saxiixayn ku yaalaya saxiix muslim khaasatan ku dagaalamaya ilaahay diintiisa hana dilina caruur walaa haween walaa oday waayeela midna dagaalkii socdaa loo diidaya bal dagaalkii uxud bu wuxuu arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam haweeney meyda markaasuu yihi kuwan waa layga reeba aniga inaan dilo sala allahu alayh wasalam wuxuu amar kusii bixiyey saamic nin meel cidlo ah ku jiro raahib ah yuhuudi ama nasraaniya oo laakiin buuraha iskaga dhex galo halkaa ku go-doonsan oo raahiba ha dilina bu yihi sala allahu alayh wasalam qarax baad soo dhex dhigtay meel ummaddii o dhan marayso labaatameeye waad tuugsanaysaa soddomeeyena nacnac bay wareejinaysaa afartameeye baabuur bay sii saaran tahay caruur iyo haween iyo agoon baa dugsi iskuul u socda laba nin ama saddex nin oo yaad rabtay ood la dagaalsanayd kasad gaari qaraxa wa ka siis 200 oo qof baa meesha ku dhimatay hadhow baa tiri istishhaadiye barakaysan war maxaa barakaysan ummaddii baa xasuuqday haddii hadafku yahay ambiyada loo soo dirayey in ummadda la dabar jaro la baabi'iyo muxuu ilaahay rasuul usoo diraya ma asagu baabi'iyo ma cid buu u baahan yahay subxaanahu wa tacaala cidna uma baahna idaa araada an yafcala shay inama yaquul lahu kun fayakuun hadduu arrin rabo inuu sameeyo kun baa ku filan laakiin ambiyada waxaa loo soo diray waa maxay allah sheegaya huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa
ودين الحق ليظهره على الدين كله الله هنون بالنبي الله صدر ذاتك حق وقارسيي كوي حق الله دقالمن والله دقالمي وفدي دينتي وقارسيي عليه الصلاة والسلام ما كسلي ما حسنا ما تابن كو ذاتك ماجي هره تاغير سنة إسلام يا شريعه يا ما أنت ذاتك تاغير سن كابدن ويوجيهن ذاتك عقلاء حتى شبابها آذانه وعن شيء يا نبيين ذاتك واجي هره دينتي ودنينين شريعه ودنين لكن شريعه ما هذا ولكتين wax kharaar oo naxariis daran oo burbura oo jixin aan lahayn oo cadaalad wax sakaraad uga dhigteen shariicadii shariicaduna waa wax macaan waa bishaaro hudan wa bushra ba alla ku tilmaamay wa rahmatan lil mu'minin laakiin mu'miniinta u tahay aqeeda saliimka marka idin soo bandhigno aan ku warnimay baraa'a qaata horta al baraa'a min ahli ishraak الفصل قاتا او بركو marka baraa qaatan kadib umada u yeeray adinkoo jaanib uga taagan oo jaanibkaas uu san ahayn al-shabaab iyo al-farah iyo al-magac baan ahayn al-islam dadkana u yeera waxa tiraadaan fikir takfiiri ah wata maya waa dacwadii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam in dadka tawxiid loogu yeero asalka laga dhiso loona sabro loo dulqaato intaas marka xasiil adinkiina taasaad shareecadiina taasaad ugu gafteen dhanka kalena kuwaan halaag baa alla idinkaga dhigay soomaali diiddii ilaahay kitaabkiisa diiday halaag alla ku gubayo ilaa ay ka toobad keenaan ayaa alla idinka dhigay fiicnaan lahaydeen haddaa waddada ku toosnaan lahaydeen maya khalad weyn baad ku jirtaan laakiin ninka wax idiin sheegaya waa nin geeri ku talagalay ninka idin yiraahda ilaahay ka baqa waad khaldantihiin kaas dil buu ku xukumaya laakiin waktigii alla ugu talagalaan ka dhimanayaa nimayo toobad keena axmed diiriyo ilaahay ka baqo toobad keen fursad baa weli haysataa mahad karateeyow ilaahay ka baqo toobad keen caynaanshow ilaahay ka baqo toobad keen ummaddan aada jaraysaan oo xasuuqaysaan oo burburinaysaan waa la idin weydiinayaa naf ma jirto la jaray ilaa alla waa idin weydiinaya muslim ha ahaato ama hayru muslim ha ahaato daciifa masaakiin iska xasuuqday yaa ku yidhi dil ilaahu hebel baan u socday markaasaan konton qof dilay ilahay makaa yeelaya maya qiil baa la iska rabaa kow dadkase haddii xaqa la baro oo diinta la baro oo dhankaas loo soo jeesto adoo iska ilaalinaya shartooda maxaa kugu dhacay maxaaba baris adaa diiday inaad barato anagaad naga hortaagantihin tawxiidka inaan faafino maanta tawxiidka inaan faafino oon masaajida iyo ariiqada jidad ka sheegno ma suufi baa noo diidan ma dowlad baa ii diidan calmaaniya dimuqraadiya maya ma jadiidi baa ii diidan qurun oo daaquudka hoos orda maya ma ictisaam baa ii diidan yaa diidan tawxiidka inaan caddeeyo baraa'atu min ashirki wa ahlihi ummadda u caddeeyo al-shabaab oo adaa diidan haddaan qaraxaasi jugtaasi jaclaas kula geli lahayn maasha allah dad fiican baan ahaan lahayn laakiin haddaan niri maya laa ilaaha ila allah ha laga run sheego xaqiiqda asalkaan dadka baraynaa ha lagu kala baxo oo laa macbuuda bixaqi ila allah ummadda ha la baro asalka ha laga dhiso shirkigaan meel walba qaata runta ha loo sheego